xubno ka socday xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xiriir toos ah waxay la yeesheen gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gado Cabdilaahi Shimbir waxaana tallaabadaasi ay ku socotay garoonka degmada Doolow oo ku dhawaad bil xiran iyadoo oo dadka shacabka ah ay xaalad culus wajahayaan kala xortay siyaasadeed ayaa hadda ka socda gobolka Gado waxaana xubnahan madaxweynaha xafiiskiisa ka socday shirkii ay la yeesheen madaxdaasi uu ku soo idlaaday natiijo la'aan muddo bil ku dhow waxaa xiran garoonka degmada Doolow waxaana socda dadaalo dawladdu ay ku sii wada sidii Doolow ay ku tagi lahayd sidoo kalena Addis Ababa iyo xiriirka xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ay la leedahay loo soo afjari lahaa laakiin shirarkaasi oo socday saacadihii ugu dambeeyay ee shalay waxa uu ku soo idlaaday natiijo la'aan khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha degmada Doolow dawladda federaalka u qaabilsan Cabdilaahi Shimbir waxaana xafiisyada labada dhinac ay ka raadinayaan Lafay iyo Macallimow Cabdulaahi Shimbir in lagu bedelo Macallimow ayuu qorshuhu dhawaan socday ahaa hase ahaatee Macallimow oo xafiiska Prime Ministerka la xiriiray ayaa waxay isku fahmeen in dhinacyadan ay meesha ka saaraan waana sababta Jubbaland saaka ay u soo daabushay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta si colaadda luuq xarawe loogu gaaro xal nabadeed sidoo kalena dawladdu ay ugu adkaato Jubbaland isfahan la'aanta dawladda iyo Cabdilaahi Shimbir ayaa maalmihii dambe kor u sii kacaysay xilli xalay ay isku daydo dawladda federaalka Soomaaliya in ilaalada gudoomiyaha gobolka Gado ay ka qaado sidoo kalena isku day la doonayo in lagu xiro halkaas ka dhacay inkastoo saaki xal laga gaaray arrintaasi Jubbaland ayaa bixinaysa dadaaladii ugu badnaa ee gobolka sidii ay gacanta ugu saari lahayd wufuud kale oo markaasi xadka Kenya ka soo dalaabi doono waxayna imaan doonaan balad xaawo oo hadda ay joogaan xildhibaano ka tirsan federaalka iyo kuwa Jubbaland kuwa oo goobta markaasi iyagu ku haya shaqo ay dawladdu u igmatay sida wararku ay sheegayaan baar dheere iyo magaalooyinka kale ee Jubbaland hadda xaaladoodu waa ay degan tahay waxaana madaxweynaha Jubbaland wali uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya isagoo halkaas kulamo kula qaadanaya madax ka tirsan Kenya iyo soo kale Ethiopia si kastaba madaxweynuhu wuxuu qorshe u yahay inuu usii gudbo Imaaraadka Carabta waxaana taasi mas'uuliyiin qaar ay qabaan inay tahay shirqool loo dhigay Axmedoobe halka uu kalena ay leeyihiin Imaaraadka waxay ka furteen Xasan Sheekh waxayna ku bedelanayaan Axmedoobe muddooyinkii ugu dambeeyay khilaafka dawladda iyo soo kale Jubbaland ayaa cirka isku sii shareerayay isqabqabsiga ugu weyn wuxuu ka taagan yahay gobolada Jubbada Hoose iyo soo kale gobolka Gado oo mas'uuliyiin ay soo kala magacaabeen federaalka iyo soo kale Jubbaland ay isku hayaan wixii warar ee soo kordho halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena